habeen sabti ah 5 bisha Oktoobar dhageystayaal waa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi barnaamijka caawa iyo caalamka qodobada aan idin hayo waxa kamid ah xaaladda Hong Kong oo cakiran qowmiyadda Oromada oo markii ugu horeysay xaflad lagu maamuusayo oday dhaqameedyadooda ku qabtay Addis Ababa waxa kale oo barnaamijka ku jira hooyo ilmaheedii bay u dhaawacsan tahay hooyo ilmaheedii bay u hooyeysaa khayr Allah siiyo wiilashan halka noogu yimid annaga ayayna qusaysa annaga waa kulan xal loogu raadinayo isticmaalka maandooriyaha oo lagu qabtay Minnesota in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay weerar lagu qaaday degmo ka tirsan Rwanda qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihi ay kamid yihiin ayaan idinkugu hayaa barnaamijka caawa iyo caalamka oo soo saaray Cabduqaadir Yuusuf Cali balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxa la diyaaraa Faadum Taxadar Yuusuf mahadsanid Kawsar ugu yaraan 5 qof oo kale ayaa lagu dilay isku dhacyo cusub oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Baghdad kuwaas oo u dhaxeeyay dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dawladda iyo booliiska rabshadaha ayaa dhacay maalin ay Baghdad u muuqatay mid xasiloon kadib dibadbaxyadii ka dhacay Baghdad iyo magaalooyin kale halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 9 qof markii ugu horeysay in ka badan hal qarni qowmiyadda ugu weyn Itoobiya ee Oromiya ayaa loo ogolaaday inay ku damaashadaan ama xaflado damaashada ku qabsadaan caasimadda Itoobiya Addis Ababa waxa aad loo adkeeyay ammaanka iyadoona 100,000 oo qof ay heesayeen kuwaas oo lulayay calamada hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Cameron Kamato ayaa la sii daayay kadib markii in ka badan 9 bilood lagu xukumay xabsi waxaana lagu eedeeyay kacdoono inuu u sameeyay hogaamiyahaasi maxkamadda militariga ayaa amartay in la sii daayo iyadoona ay la socdeen in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan mucaaradkiisa madaxweyne Paul Biya ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay jimcihii in hogaamiyaha mucaaradka la sii daayo ugu dambeynna hogaamiyaasha 3 guddi oo ka tirsan Congress-ka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump amar diido qarin marka loo eego qaabka uu wajahayo baaritaanka la xiriira xilka qaadista waxayna dalbanayaan dukumeentiyo la xiriira dalabkiisa Mr. Trump ee uu ku dalbanayo in Ukraine ninka isaga kula tartamayaan xilka dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirkooda la wanaajiyo kaas oo kala dhaxeeya Ukraine iyo la dagaalanka musuqmaasuqa State Department was very focused. wasaaradda arrimaha dibadda arintani diiradda ayay saaraysaa inagoo raacayno jihada madaxweynaha waxaan doonaynaa inaan xiriir wanaagsan la yeelano xukuumadda cusub ee dalka Ukraine taasi waa tubta aan marayno danjire Kurt Volker oo ah ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Ukraine ayaa si taxadar leh uga shaqeynayo sidii fursadaasi loo abuuri lahaa waan ognahay in Ukraine uu ka jiro musuqmaasuq Mareykankana wuxuu ku dadaalayaa sidii gudaha Ukraine uga hirgeli lahaa la dagaalanka musuqa maamulka oo si buuxda uga howlgalayna sidoo kale way ka go'an tahay This administration's been full-fledged on committed to that as well. codkaasina waxa uu dambeeyay warkii dunida oo Faadum Taxadar ay noo aqrinaysay halkani waa BBC habeen wanaagsan markale dhageystayaal aan ku bilaabnay magaalada Hong Kong waxa weli xiran dhammaan qadka tareenada iyo ganacsiyada qaar halka kuwa kalena ay abaabulayaan dibadbaxyo hor leh tareenada mara dhulka hoostiisa iyo basaska ayaa shalay la joojiyay kadib markii dibadbaxayaashu ay weerareen xarumo kala duwan dibadbaxayaashuna waxaa laga mamnuucay inay wajiga qarsadaan ilaa iyo laga gaarayo saqda dhexe ee caawa wararkii ugu dambeeyay ee dibadbaxyadaasi ka socda Hong Kong waxay noo hayay oo haata stuudiyaha igula sugan Cabduqaadir Yuusuf Cali Cabduqaadir Kawsar hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa difaacday go'aankeeda ah inay adeegsato awoodaha degdega ah si xasiloonida iyo kala dambeynta dib loogu soo celiyo Hong Kong xasilooni darrada ayaa cirka isku sii shareertay jimcihii kadib markii ay booliska lugta ka togteen mid kamid ah dibadbaxayaasha oo dhalinyaro ah dibadbaxayaasha ayaa dadka ugu baaqay inay ka hor yimaadaan mamnuucida maaskaraatiga wajiga ee ku dhawaaqday Islaam Bonnie Leung waxay kamid tahay dadka u ololeeya dimuqraadiyadda waxayna qaban qaabisay qaar kamid ah dibadbaxyadii ugu dambeeyay waxayna BBC-da u sheegtay inay dibadbaxayaasha ay dawladdu ku soo rogtay sharciyo adag
Hong Kong people have been forced to react to the tyranny of the Hong Kong government. dadka reer Hong Kong ayaa lagu khasbay inay ka falceliyaan xukunka diktaatooriga ee xukuumadda Hong Kong sababtoo ah dawladda Hong Kong ayaa baalmartay sharcigii iyo baarlamaankii waxa ayna mamnuucday in dadku ay wajiga xidhaan dawladdu waxay siisay awood dheeri waxa ayna xayiraad ku soo rogtay dhammaan dadka dibadbaxyada dhigay ee wajiyada soo duubtay ama qarsaday marka dadka reer Hong Kong waxa uu muuqda inuusan jirin xal kale oo aan ka ahayn dibadbaxyo iyo in la sameeyo amar diido. So Hong Kong people feel that there is no way out. Kowsar dhanka kale Tara Joseph oo ah madaxa ganacsiga Mareykanka u qaabilsan Hong Kong ayaa BBC-da u sheegtay in xaaladda ay sii adkaanayso ayna adag tahay in ganacsi laga sameeyo Hong Kong. Hong Kong is continuing to tick. It's just getting harder every day when you can't get to work because the subway is shut. xaaladda Hong Kong maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii xumaanaysaa shaqo ma aadi kartid sababtoo ah wadooyinka waa ay xiran yihiin dhibaatadan aadka u weyn goormaa la xalin doonaa waxaa xusid mudan in sidoo kale ay dhibaato u keeni karto ganacsiga ka dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha waxayna taasi saameyn aad u ballaaran ku yeelanaysaa Hong Kong maadaama magaaladan ay udub dhexaad u tahay Mareykanka iyo Shiinaha. That also has a huge impact on Hong Kong, which of course is the gateway city to the US and China. sharxiga tarxiilida ayaa meesha laga saaray balse dibadbaxyada ayaa cirka isku sii shareeray waxaana bilooyinkii ugu dambeeyay socday iska horimaadyo u dhaxeeyay booliska iyo mudaharadayaasha dimuqraadiyad doonka ah khalalasaha Hong Kong ayaa bilowday kadib markii bishii June la soo saaray hindisa sharciyeed dadka dambiga ka geysta Hong Kong loogu tarxiilayo gudaha dalka Shiinaha Hong Kong oo gumeystay Ingiriiska ayaa dib Shiinaha loogu celiyay sanadkii 1997 Kowsar Cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay wuxuuna nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dibadbaxyada iyo isku dhacyada ka socda Hong Kong markana boqolaal sano ka hor qowmiyadda Oromadu waxay lahayn jirtay maalin ay xusaan maalinta odayaal dhaqameedyadooda ee loo yaqaan abagadayaasha oo la doortay waxayna isugu soo bixi jireen caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa oo markaas ahayd ceel la yiraahdo Finfine 150 sano ka hor ayaa boqorkii la oran jiray boqor Mililikh uu sheegay inay xafladan ku qabsadaan meel ka baxsan Addis Ababa waqtiga kadibna maanta ayay markii ugu horeysay xafladaasi ku qabsadeen magaaladaasi isbedelada Itoobiya ka dhacay awadi wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira xafladaasi ayaa waxaan goordhow ka wareystay wariyaheena magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam Kowsar maanta fagaaraha weyn ee magaalada Addis Ababa inta badan xafladaha iyo ciidaha lagu qabto ee loo yaqaano Masqal Adababa iyo waliba garoonka kubadda cagta waxay isugu yimid dad badan oo ka tirsan qowmiyadda Oromada iyo waliba qowmiyadaha kale ee Itoobiya sababtuna waxay ahayd qowmiyadda Oromada ayaa xilligan oo kale sanad walba waxay yeeshaan xaflad ay ku maamuusayaan abaagadayowga oo inagu waasiyada meesheena salaadiinta halkay noogu jiraan iyo ugu jira ayaa waxaa la xustaa xilligii la doortay ama xilligii arrintan laga fadhiistay ayay xilli walba sanadkan oo kale ay maaragtay ay xusaan marka Kowsar waa xaflad qowmiyadda Oromiya u gaara laakiin inta badan waxaa lagu yeeraa qowmiyadaha kale si ka soo qayb galahaan iyo sharfin ahaan oo kala Cabdinaasir oo marka xafladan maxay kaga duwan tahay xafladii sanadkii hore la qabtay ee xagga amniga oo kale markayna eegno maxaa iska bedelay Kowsar waxay xustaa xilligii aan soo dhaafnay in ay dad badan ku dhinteen xilligii kacdoomada ay wadeen qowmiyadda Oromadu ay ku diidanayeen xukunkii TPLF-ta uu xoog ku lahaa waxaa loo tahay in dad badan ku dhinteen Dabrezeed isla xafladan oo kale hadaba Jawhar Maxamed iyo dadka hadda mishiinka u xafladahan aad loogu dhaxarko markaas mucaarad bay wada hayeen Abiy Ahmed wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Oromiya hadaba arrintiiba si toos ah isu bedeshay waxay iska bedelan tahay xagga amniga aad baa loo adkeeyay maanta waana markii ugu horeysay 150 sano kadib lagu qabto magaalada Addis Ababa 150 sano sanadkii wixii ka horeeyay waxa lagu qaban jiray Dabrezeed oo boqorkii wadankan Itoobiya khariidadiisa isagu jeexay oo kula taliyay qowmiyadda Oromada inay ku qabsadaan araha waaweyn ee ku garab yaala magaalada duleedka Addis Ababa ee Dabrezeed la yiraahdo waa tahay si guud markaynu u eegno marka xafladan maxay tahay muhiimadda ay leedahay maxay u soo kordhinaysaa qowmiyadda Oromada Kowsar horta
waxaan u maleynayaa waxa ugu weynaa hadda indhaha lagu wada hayo waxa weeyaan xafladii oo dib loogu soo raray magaalada Addis Ababa taasna waxaan ognahay inaa waayada weyda ay isku haysteen xataa dhalinyarada qowmiyadda axmaarada ka tirsan iyo dhalinyarada qowmiyadda Oromiya ka tirsan marmar badan ay dooda magaalada Addis Ababa ay isku dareen siyaabo kala duwanna labada qowmiyadood ay u kala sheegteen magaalada Addis Ababa tusaale ahaan magaalada Addis Ababa waa xudunta qowmiyadda Oromiya ceel bayna ahaan jirta hadda ka hor Finland baa la odhan jiray qowmiyadda Oromiyada waxay ahayd meeshii ay maaragtay ay ku doorteen abaagadiyogan oo dad badan aaminsan yihiin 2,000 sano inay maaragtay ay taariikhdeedu dhan tahay dad intii abaagadiyoga la dooranayay 150 sanana boqoradii Itoobiya qowmiyadda axmaarada u dhashay ayaa gacanta ku hayay taasina waxay keentay in badan oo qowmiyadda axmaarada ay lahaansho iyagu magaalada iyo magaalooyinkeedaba ay sheegtaan marka ahmiyadda hadda ay leedahay waxa weeyaan qowmiyadda Oromada oo madax oo hormuudka ah wadankan Itoobiya oo iyagu maanta kursigii looga talinayay wadankan iyagu ku fadhiya isla markaana dib loogu soo raray xafladii 150 sano ka hor boqor Mirilix oo qowmiyadda axmaarada ka soo jeeday uu ka raray dib loogu soo raray baa ahmiyadda ugu badan hadda ay leedahay ay tahay marka ka soo xafladan ayaa lagu marti qaaday dhammaan qowmiyadaha wadankan Itoobiya laakiin kilalo qaarkood meena si weyn uga soo qayb galin tusaale ahaan deegaanka Canfarta oo kale waxaa la sheegay in kastoona istaba joogin oo aan magaalada Jigjiga waxaa la sheegay inay si weyn uga soo qayb galin laakiin deegaanka Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa deegaanada sida ballaaran uga soo qayb galay sidoo kalena berri magaalada Dabredeed iyo halkii hore loogu qaban jiray ayaa lagu soo khatimi doonaa xafladan cabdinaasir sheekh maxamed xikam waryahayaga magaalada Jigjiga ayuu ahaa dhanka kale isla cabdinaasir waxa uu arrimaha ku gadaaman xafladan uu ka wareystay abagade kamid ah abagadeyaasha qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabo Khadiir Cabdinuur walaalow arrintani qarniyo badan bay soo jirtay nimanka taariikhaha qoray way isku khilaafsan yihiin qaar wuxuu ku leeyahay 5,000 sano ka hor bay bilaabatay qaar 2,500 adigu inta qoraalada kumbuyuutarada ku jirtay waa qarnigii 16aad laga soo bilaabo laakiin 5,000 sannadood way soo jirtay maxaa yeelay arrintani waxay ku bilaabatay xuskani samayntii heerka iyo dastuurka systemka abagadaha oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay horumarku meesha uga bilaabmay loo og yahay marka munaasabadan magaalada Sinfinne ama Addis Ababa ayaa xarunta bartamaha u ahaan jirtay oo lagu qaban jiray sababta loo aasaasay ma waxay ahayd baad leedahay abaagadayaasha samayntooda iyo ama doorashadooda iyo ku soo bilaabatay arrintani waa dee dhaqan qoomiyad walba dhaqan u gaar oo maalin u gaar bay leedahay imka dawladaha Yurub iyo Afrikada qaarkoodba maalintaas ama dalkeenanba gobolada maalin qoomiyad walba maalin ay dhaqankeeda xustay leedahay marka ay dhaqankaasi dawladda marka jiri jirtay ilaa caalamkaba ku baahday systemkan abaagadaha ahaa marka maalinta koobaad maaragtay dhaqankaas uu bilowday ayaa lagu xusaa ahmiyadda marka ay u leedahay qowmiyaddan Oromiya maalintaasi waa maxay ahmiyadda ay u leedahay waa maaragtay dhaqankooda iyo caadadooda oo maaragtay si ayna u dhaqan guurinayna caadadii u tagin caadadii oo xornimada ay kamid tahay iyo dadnimadii iyo jiritaanka dhaqankaagii iyo caadadaadii iyo systemkii aad lahayd dimuqraadiyadda ahaa inaad ilaashato oo jiilka dambena u gudbiso marka faa'iidada u leedahay allabari lagu allabaryo oo sanadkiisa markuu ilaahay uu waqtigii soo gaarsiiyo mahadnaqa ilaahay lagu mahadnaqdo oo lagu ducaysto kulamadii hore kulankani muxuu kaga bedelan yahay kulankani wuxuu kaga bedelan yahay meeshii xarunta koobaad ahayd caasimada u ahayd ama bartamaha Oromiya ahayd oo lagu xusi jiray oo xoog iyo dictatoriyad lagaga kala dareeriyo dadkii wadankiiba laga raray sabab xaruntii dalka ama qoomiyadda oo ama Afrikaba meeshii ahayd oo ugu weyneed oo lagu xusi jiray ayaa xoog lagaga celiyay marka hadduu ilaahay isbedelkan iyo naacawdan ilaahay soo celiyay waxaa kow ka oo dadkii maaragtay loogu bishaaraynaya in xaruntayadii aan si xornimo aan ugu ducaysanayno oo dhaqankanaga iyo caadadeennadii aan ku qabsanayno abagade waxaan ognahay arrintan inuu hadda ka hor diiday boqor Mirilix loo jiray 150 sano ka hor isla markaana Dabredeed uu yiri orday ku qabsada marka haddii aad tidhi caasimadii Sinfinne ama magaalada Addis Ababa dib ugu soo noqonnay 1 milyan oo ruux oo Oromaa ka badan maanta ay goobjoog ka tahay oo sabtiya ma laga yaabaa dad kale oo cuqdad ka qaada arrintan oo qowmiyadaha kale inay jiraan ma laga yaabaa ama la arko oo dhibaato kale ay keento arrintani imika nidaamka sida loo qorsheeyay loo gudanayo
xuskaasi ma filayna inuu maaragtay waxna carqaladeyn karo oo arrintan is hortaagi kara laakiin qofku damiirkiisa wuxuu ku qarsan uu iska jiraa xornimadan iyo isbedelkan bade dadka gumaysan jiray ee soo dhibi jiray way ka wada xun yihiin taas calooshiisa ninka ka xunisuu doona weeyaan laakiin maanta sida nabadgelyada iyo nidaamka iyo qoomiyadaha kasoo qayb galaya iminka meeshii aan taagnahay waxaa laga bixinayaa kumaan oo VVIda baabuurta lagu qaato oo qoomiyadaha kale 1 milyanna ma aha tiradaasi ilaa 10 milyan ayaa la filayaa inay maalintan maanta ee sabtida ilaa 10 milyan inay isugu timaada laga yaabaa oo oromada oo keliya qoomiyadaha kale markii lagu darana wayba kasii badanaysaa kaasi waxa uu ahaa Khadiir Cabdinuur oo ah abagade kamid ah abagadeyaasha qoomiyada oromada abagade markaana leeyahayna waa ugaasyada ama oday dhaqameedyada waa tahay saacada Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 9 fiidnimo iyo qadar 15 daqiiqo halkani waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana Minnesota waxaa lagu soo waramayaa inay sare u kacday tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota ee la dhibaataysan mukhadaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada ayaa waxa ay isticmaalaan dawooyin ay mukhadaraad ahaan u isticmaalaan kuwaas oo halis geliya naftooda oo bilihii ugu dambeeyay waxaa dhibaatooyinka arintaasi ka dhashay u dhintay ilaa iyo dhowr iyo 20 dhalinyaro ah taasi waxay horseeday in bulshada halkaasi ku nool ay walaac ka muujiyaan dhibaatadaasi sida daraadeedna ay xoogooda iskugu biiriyeen sidii marka arintaasi ay xal ugu heli lahaayeen haddaba kulan looga hadlayay arinta qatarta ay ku soo kordhisay ayaa waxa ka qayb galay oo warbixintan inooga soo diray wariyaha iyaga Siyaad Saciid Saalax hooyo ilmaheedii bay u dhaawacsan tahay hooyo ilmaheedii bay u hooyeysaa khayr allah siiya wiilashan halka noogu yimid annaga ayayna qusaysaa annaga soo haajiridii dalalka galbeedka waalidiinta Soomaaliyeed waxa ka haysta caqabada ay kala kulmayaan dhalinyarada waayadan dhibaatadu maalinba meel bay ka imanaysaa Minnesota waxa hadalhaynta ugu badan noqotay dhimashada dhalinyaro isticmaasha kiniiniyo xadkooda dhaafsiisan oo maandooriya ahaan ay u isticmaalayaan dhimashadu sanadkan 2019 waxay maraysaa inta la og yahay 24 waxaa la baraarugay markii bishii tagtay ee September 4 Soomaaliya la aasay dhalinyaro wanaagsan iyo tiro hooyooyin ah ayaa isa soo abaabulay goobtana ku wada murugaysan marka laga hadlayo waxa socda iyo dhacdooyinka qaar ayay la ilmeynayaan markaad maalin walba arkaysid cunugaagi oo isdhaafsan oo habeenkii aan imaanaynin hooyo seexata malaha marka qarsashada aan qarsanayna haddaan hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa nooga caafimaad badan inaan ka hadalno haddaad maanta cunugaaga kala hadashid oo u sheegtid in waxaan ay tahay wax dhibaato ah oo caawimaad u baahan uu ogyahay asaga inuu caawimaad u baahan yahay laakiin markuu ogaado inaad adigana ogtahay inuu caawimaad u baahan yahay isaga way u fududaanaysaa inuu caawimaad raadsado waa hooyo Soomaaliyeed oo dhiiran waxay fartuun dheel u bareertay xalinta dhibaatada balwada ay wiilkeeda ku jiidatay waxay u hurtay maal iyo waqti si ay ugu dabiibto aakhirkiina waxay gaartay arin tusaale mudan waxayna iisi raacisay markaan aniga furtay qalbigayga oo aan cunugayga inuu xanuunsan yahay oo kale ula dhaqmay oo aan la fariisto iraahdo haye ma iska dayn kartaa hal maalin xataa oo isku dayay asaga inuu iska daayo laakiin uusan iska dayn karin inuu dhididaayo aniga markii dambe ku caawiyay waa ku soo dhaweeyay waa ku caawiyay waa la raadiyay markii dambe asaga wuxuu yiri hooyo hadda lacagtaada kaliya kuma isticmaalayo bahashan aniga waa ogahay inaan iska dayn karin xirma ihi meel baan raadsanayaa maantana meeshii buu ku jiraa meeshaas baa hadda haysanaa Soomaali laba wiil hadda meel leh treatment ah kan marka wiilkan wuxuu ku caawiyaa ciyaalka medication ka yareynayo xanuunka ay ku qabanayso balwad la'aanteeda baa lagu siiyaa waa halis haddii dan iyo daruuf isbiirsatay ay qofka meel dhigaan balse qofkii daryeel rasmi ah hela ayaa ka bixi kara dhibaatada dhalinyaradan maanta waxay u istaageen inay iskala hadlaan qatarta qaar ka mid ah la soo daristay xanuunka ay arinta ku haysana waxay ku keentay inay mahmahaan ayday maxay ku maamahdi jirtay cunto qofku si waa helaysa qofku waani ma helaysid kulli Soomaali wax ku mahmada farkaliya qorax ma qariso waa ay dadaaleen waxay taasi muujinaysaa xaaladda taagan in wax u sheegis iyo wadar in wax loo wada qabto way ujeedadoodu dhalinyaradan
inkastoo la waaniyey iyaguna dhankooda ayay waalidka wax uga sheegayeen. Hadii hooyo hal mar gacanta ku taagtay tiraado ilaahayo cunuga ii soo hanuuni ilaahay wuu ku hanuunin karaa soo hana habaarin markaan habaartid habaar samadu galaa meelna ma ku dhaco meel cidlana ma ku dhaco soo hadaa imaado anoo indhahay guduud ah ama hadaa imaado anoo cunto cuneenin ama anoo jaha wareer haayo hadaa habaartid habaarkaas meel ku dhacaya intay dhiglaad ilaahay ku soo hanuuni maxaa sawir ah wilaale warado samaams maxay ku habartama adoo socota gaari ha ku dardaro. waxa isweydiin leh waa maxay dawooyinka ay dhalinyaradan qaataan oo ay u dhintaan halkayse ka keenaan. waxaa si wadara inoogu sharxaya yuusuf shaafi iyo samsen maxamuud oo ka howlgala xarun lagu dabiibo dadka daroogadu daashatay oo ku taala Minnesota. dhalinyarada waxay qaataan kaniiniyo badan oo xanuun baabi'in ah iyo kaniiniyo kale oo dhaho maxaa la Percocet iyo fentanyl iyo carfentanil daawo laga qaataan markay basadaana qofku ugu dhiman karaa. mid kale oo hadeertan wiilasha badankooda dilayso fentanyl kala dhaho kaasi wadada jidka ka iibsanayaan qaarina ma ahan wadamada kale laga keenaa badana marka ugu horeysay dhalinyaradu ay la kulmaan darooyinka noocay toonan haadan waa markay high school ku jiraan. codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii uu wariyaha iyaga ee Minnesota Siyaad Saciid Saalax oo halka ka soo diray kuna saabsanayd kulanka oo xal loogu raadinayo isticmaalka maandooriyaha ee dhalinta Soomaalida oo lagu qabtay Minnesota. markana in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay weerar looga shakisan yahay inay soo qaadeen ciidamada dimuqraadiga ee xoreynta Rwanda oo loo soo gaabiyo FDLR. koox hubeysan ayaa xalay weeraray degmada Musanze oo ku taala waqooyiga dalka Rwanda. weerarkaasi ayaa galaaftay nolosha in ka badan 10 qof oo rayid ah sida ay dadka deegaanka u sheegeen BBC-da. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa warbixintan soo jeedinaya. weerarkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanada Kingi iyo Musanze oo ay dalxiisayaashu aad ugu badan yihiin. kooxda fallaagada ee lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiyadda iyo xoreynta Rwanda FDLR ayaa ka dagaalanta bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxayna waqooyiga galbeed ee dalka Rwanda ay kaga soo qaadaan weerar istaba jooga. Alois Niyibizi oo ah maamulaha deegaanka weerarkaasi ka dhacay oo u warramay BBC-da ayaa sheegay in ay maleeshiyada dablida ay doonayeen cunto sidaana ay dadka deegaanka toori la dhaceen isagoo sheegay inay xaqiijiyeen dablida inay ka tirsan yihiin kooxda fallaagada FDLR. ciidamaduna waxay ku raad joogaan dableyda weerarkaasi geysatay. xaaladda deegaanka weerarkaasi ka dhacayna caadi ayay ku soo noqotay ayuu yiri Mr. Niyibizi. balse dad deegaanka ayaa waxay sheegeen in 10 qof oo rayid ah oo guryahooda ku sugnaa xilligaasi weerarka dhacayay halkaasi lagu dilay. weerarkan ay geysteen xubno looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda halkaas ka dagaalanta. booliska dalka Rwanda oo wax yar ka hor shir jaraa'id qabtay waxay xaqiijiyeen 8 qof in ay weerarkaasi ku dhinteen 18 qof oo kalena lagu dhaawacay. jabhadda xoogaga dimuqraadiyadda iyo xoreynta Rwanda oo ay leedahay beesha Hutu oo la aasaasay 2000 ayaa waxay ka soo horjeedaan saameynta siyaasadeed ay beesha Tutsi ku leedahay gobolka. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. telefoonka nambarkiisu yahay 4478620090. kadib waxay kula tahay BBC Somali. barnaamijka waa caawa iyo caalamka markana waayadii hore iyo maantaba waa ay yar yihiin haween qorar waayado la jilo oo ay hal abuureen waxa ay ka qayb qaataan jiritaanka filimada iyo riwaayadaha ay raggu sameeyaan. dad badan ayaa rumaysan in riwaayadaha Soomaalidu waqtigan iyo waayadii horeyba ay daawan jireen aanan laga wada muujin doorka haweenku ay ku leeyihiin mid awoodeed ama mid kaalinta nolosha ay ka qaadan karaanba oo waxa ay kaliya ee la soo bandhigo ayaa ah kaalintooda hooyanimo ama guriga dhexdiisa. Yasmiin Maxamed Kaahin oo ah hal abuur dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa waxa ay qabtaa haddii dumarku ay hal abuurkooda soo bandhigi lahaayeen ay ahaan lahaayeen kuwa muujiya hanka iyo awoodda haweenka ee aan aadka loo sheegin. waxa ay u warantay wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad. riwaayadu horta saameyn bulsho oo aad u weyn bay lahaayeen marka horeba imikana leeyihiin inkastoo gaabkaasi aad u banaanaaday intii ay burbureen tiyaatarradii Soomaalidu. doorka ay ku lahaayeen haweenku mar walba ma ahayn door aad u ballaaran sida ay ugu leeyihiin rag oo kale waayo hal abuurka masraxiyadda ee Soomaalidu wuxuu u badnaa kuwa ay rag u qoraan hal abuurkii. abwaanadu waxay qori jireen riwaayado deedna doorka ay dumarku ku lahaayeen waxay haayeen in ay iyagu jilaan. marka haddii maxay haday jilista oo kaliya ta un ma aha ee
doorkii ay ku lahaayeen qaab dhismeedka bulsho ee ay haweenku qaybta ka yihiin waxay ahayd mid aad u malaynayso inay ahayd qabyo waayo markaad taagan tahay qofku markuu gudbinayo dareenka uu matalayo ama uu qorayo dee qofna ma gudbin karo dareen aanu isagu qabin marka aan leeyahay dareen aanu isagu qabin markuu qofku hal abuurka yahay qof laba ee uu qoro ama ka hadlayo arrin haween waxa laga yaabaa inay ka saameyn badan tahay haddii ay qori lahayd hal abuur dumari marka doorarkay qaadan jireen ee sheekooyinka ay kaga jireen maxay yihiin waxay u badnaayeen maxay hiday doorar lagaga sheekaynayo un dumarka awoodahooda qayb ka mid aynu ka hadlayno gabadh gurigeedii joogtaa ama inan isjecel doorarka ugu badan ee ay yeelan lahayn doorka ay haweenku kaga jiraan bulshada wuxuu ahaa mid gaabiska ah marka waxaad leedahay gabadh iyo gurigeeda iyo odaygii qabay unbaa inta badan ay sheekadu lagu matali jiray gabadha iyo gurigeeda inta badan doorkay qaadanayeenba u ahaaba ha oo waxaynu odhan karnaa doorar badan oo gabadhu lahayd baa aan lagu muujinin ee waxa lagu muujiyo doorka gabadhu ay ku lahayd gurigeeda ayuunbaa lagu muujiyay halkii awoodihii kale iyo doorarkii kale ee nololeed ee bulsho ee ay lahayd aan lagu muujinin markaa sababtu maxay tahay dee walaal anigu taa waxaan qabaa inay tahay sidiiqow haddii hal abuurku uu yahay qofka hal abuuraya dareenka qofka uu gudbinayo imikoo kale haddaynu ka hadlayno qof nayna awoodooda soo bandhigin ay ahayd sababtay u qabyooday marka ay raggii abwaanada ruwaayadaha samaynayaan door walba oo ragga khuseeya dhib iyo dheefba way ku soo bandhigeen wixii rag khuseeya maxaa ka maqanaya dumarku hadday gabadhi ay qori lahayd ama ay jiri lahaayeen ilaa waqtigaas gabadho waxyaabaha ay soo bandhigi lahaayeen ee iyaga dareenkooda khuseeya kamid ah dee waxay soo bandhigi lahaayeen baahiyaha ay qabaan dumarku ay ka mid yihiin maxay hiday baahiyaha u gaarka dumarka ay ka mid yihiin doorarka nolosha ay ku leeyihiin aan ahayn doorka guriga ay ku leedahay oo kaliya ay ka mid yihiin doorka ay ku leedahay nolosha rasmiga ah ama ha ahaato inay ganacsiga tahay ama ha ahaato inay leedahay hal abuur kale ama inay leedahay han kale sida hanka ragga iyo hal abuurkooda iyo doorarka nolosha ku leeyihiin rasmigaaba loogu soo bandhigay in iyagana doorarka kale iyo hibooyin doonisaha kale iyo ay lahaayeen in lagu soo bandhigi lahaa oo hadday gabadh qori lahayd ay isu miisaanlaan lahayd ayaan filayaa marka maxay tahay baad is leedahay sababta haweenka laftigoodu gabadh inay isugu day waayeen inay wax qoraan wallahi taa waxaan qabaa hibada badan dumarka ku duugan ee aan soo bixin inay tahay ama aynaan ku dhaleecayn karin aynaan odhan karin awooddaasi way qarsoon tahay laakiin waxaynu odhan karnaa haweenka awoodoodaas weli waanay soo ifbixin siday usoo ifbaxday hibada kale ee hal abuurka ragga ahayd waxaa laga yaabaa inaanu qofka hal abuurka dumarkii aanay kartideeda aaminin haddii ay aamini lahayd inay soo saari lahayd siday u aaminsan tahay hal abuurka jilista ee ku jiraba inay soo saarto inaanay u aaminin tan laakiin waxaa laga yaabaa haddii ay arkaan dhowr qof oo dumar oo wax qoraya ama haweeno wax soo bandhigaya in iyaguna ay ku dhiiradaan oo haween kale oo wax qoraya kadiba loo dhiirigelin karaa haweenkii kale ee hal abuurka ahaa si ay doorkooda dee dumarun ka hadla maahay si ay hibadooda usoo bandhigaan qaybta bannaan een doonayno inaan weliba buuxinaa waxa weeye ee xagga hal abuurka ah jilista oo ah hibo soomaalidu leedahay oo qof kastoo soomaaliya uu wax jili karo laakiin u baahan in dhaqankii iyo nidaamkii saxda ahaa ee wax loo jilayay ee masraxa loo soo istaagayay in la baro oo lagu layliyo qofka jilaha ah yasmiin maxamed kaahin oo ah hal abuur dhalinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa ayay ahayd waxayna u waramaysay wariyaha iyaga sidiiq maxamed burmad markana dhegeystayaal cayaaraha aynu eegno weliba kulamada ee maanta dhacay ee ka tirsan Premier League iyo sidoo kale cayaaraha kale ee La Liga ciyaarta aanu ku bilaabayno waxay tahay kooxda Liverpool iyo Leicester City oo 2-1 ku kala baxay caawa waxa la islahaa malaha Liverpool kulankii ugu horeeyay ee ay barbardhac gali doonto kulanka ama weliba horyaalka sanadkan ayuu ahaa laakiin nasiib wanaag qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta ayaa waxa markii muuqaal ka saacida garsoorayaasha ee loo yaqaano VAR-ta ay markaa ay ku heleen rigore oo marka uu dhaliyay Milner waxa ka sii horeysay hal gool oo uu keenay Sadio Mane dhanka Leicesterna Madison ayaa daqiiqadii 8aad halkaasi gool u dhaliyay kulamada kalena waxaad kaga bogan doontaan idaacadeena dambe inta ayanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka caawa iyo caalamka oo Cabdiqaadir soo saaray anigoo ah Kawtharna idin la socodsiinayay ee dhageystayaal nabadgelyo